gabar markeedii hore youtuber ahayd qaabkay rabtaba ha u ahaato qaab wanaagsan iyo qaab xun sidee rabtaba ha ku ahaato YouTube ka shaqaysanaysa markuu ninkeeda dhinto oo asaay ay qaado YouTube ka ma ka sii shaqaysan kartaa iyo shaqadeeda ma sii wadan kartaa xilliga asaayda ay taagan tahay xasanada salaadaadan qubqub aad ka siisay ninkaas xaaskiisa aad daba dhigatay ayaa qiyaamo ka qaadanaya waa midda kale ilaahay ummadiisa ummatu maxamedna kama midey bari buu ka noqday bal nacalada ilaahay baa ku dhacday si ilaahay kugu cafin kara ma jirtaba oday qaniis noqday ma banaan tahay in la dhaxlo wax lacagtaasina la og yahay uu ka shaqeeyay ay tahay qaniisnimadii wiil sudahadiisa dul saaran ama u galmoonaya ilaahay baa ka magan galday maxaa lagu xukmin karaa ama shariicada islaamka ay ka qabtaa midda kale xaaskiisii ma ku xirmaysaa mase way ka furmaysaa waa soo xaaskii qaba gabadhii qaba ayuu hooyadeed wax ka dayay hooyadeed wax ka dayay waa ajaa'ibkii zamankan aqliga iyo akhlaaqda iyo dhaqanka iyo diinta markii laga fogaado waa noocan soo kale waa tan igu mucjisada badan wiil habaryartiis hooyadiis la dhalatay uureeyay cunuga uu dhalo sidee reerka uga mid noqon karaa waa su'aash waa idin salaamay jamaahiirta aynu halkan ku walaalownay maantana waxaan halkan ku waraysan doonaa waa sheekheeni Sheekh Badbaado ama Sheekh Faaruq hadba qofka sidoo u yaqaano Sheekh Badbaado ku soo dhaw aad baa mahadsantahay ku dhawahay markale asxaabtaadana waa salaamaya dhamaantiin aad iyo aad waa mahadsantahay Sheekh maalintii hore waxaan baafinay inaan su'aalo ku weydiin doono dabcan jamaahiirtana Instagramka iyo WhatsAppka waxay iga soo weydiin su'aalo de marka waaqici ah sina markii loo eegana aad de u yara qalafsan laakiin diintu de in la isweydiiyo xishood ma gasho sidoo ilaahay aayaadkiisana ku sheegay cilmigu xishood ma laha inuu qofku wax ka ogaado saaxiibada qaliga hadii aad YouTube-ka ama Facebook-ga igala socotaanba ku soo dhawaada sidoo kalena su'aalahan toos u gudagaleena muuqaalkana inala share gareeya aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan ku bilaabayaa saailka koowaad ama nasoo weydiyaha koowaad ee nasoo weydiiyay su'aashana waxay u dhacaysaa sida tan taasoo ah sheekh waxa lagu soo weydiiyay anug wicil ah wanqal ma leeyahay aad baa mahadsantahay dhamaantiina waa idin salaamayaa adiga asxaabta ku xiran halka kan mar labaad ilaahay barto mahad iska leh oo mar kale na kulmiyay ma sha Allah waxaan ka rajaynaynaa insha Allah ta'ala dunya aakhirada wanaagna uu kulmiyo iyo farxadda islaamka ama sharciga islaamka wax uusan ka hadleen ama wax soo faahfaahin si gaar ah si guud ahaan ma jiraan haddaynu fiirino xogaa anu su'aasha yani ilmaha wacalka أنا واحد هي راح حتى سؤالها إني حتى سوينا شغف في الوعل معناه الماء شرع الله هنا أما شرعي كودلان نكاح شرعي كودلان أوكي تاسن لأنا أوكي هاد هو يديس بلوغو نصب شيء كاس لوجو أبترينيا سوى ناكسن أو راعية سوى ناكسن أنا وحلي هذا هو يدا وحكوي ماذا بالمضى والطبيعي أبنيمد لك الشرع بكتي ما تاسي فشرعي أنا صامرت سوى ناكسن لكن هو ينمد والطبيعي وأبوريس سوى ناكسن هو يدي مركا ما أول قلي كرتها وحسوس كليا نصوصتي حديثي تلمامي وانقل كسيكود هنا لما كان ده من الشرع كل شيء من الشرع كله نو كلا ده المكستو حالي قيامها وانقل كيسا أيو رهنوية مركو حسوس كليا المها لقى وانقلي وكون قلي كا لكن واجبكم أهان وسامين كرتها هو يدا أما قفكو وسامين كرا لكن واجبكم أهمه sidoo kale su'aasha labaad waxa ay leedahay oday qaniis noqday dhaxalkiisa ma banaan tahay in la dhaxlo wax lacagtaasina la og yahay uu ka shaqeeyay ay tahay qaniisnimadii aad baa mahadsan tahay horta waxyaalaha noocaana dadku bilaadanka si guud ahaan maba aqoonba si wanaagsan camalkan aad ka fooshuxun si wanaagsan sanadkan aad buu soo badanaya casriyadan dambe dadkii oo soo xataa gaar marka bulshadana fiirino Soomaalida waa arkayna waa maqlayna hebel basaas hebel baqaniis ee waagi hore waxan ma aqoon ma jirin ba waa ka soo bariyo waxba ku bariya waa sax haddii yani camalkaas samaynayo horta wuxuu la mid yahay عملنا كلا كبائرته الذنوبته إلهي الرابي سندي يوحي الله متكها يدلكها كل مديه وأنا عمل قوم لن إلهي كهلاجي يعني أسباب متكمدة لو هلاجي قوم منو وأنا واحد فترة بلا آدم كبحسن
diimaha dhamaana isku waafaqeen inay xaraam tahay qofkii hadduu dhinaca u leexdana ma ahan arrin dabiici ah sida qaar ku lahaa waan xanuun nafsaani xanuun baa qofkan haleelay waxaad arkaysaa nin raganimadii iyo doorkii Ilaahay u abuuray ee noocaas ahayd intuu ku fashilmay dhinacan u bayraya halkaan leh ku dabool haweennimadii iyo noocaas Ilaahay u abuuray intuu ku fashilantay dhinacan u beeriso dhahaysa haween kale wax ka deeyayo waxaas oo dhan waa jira laakiin hadday timaado waxyaalaha noocaana culimadu waxay ka hadlaan qof gaaloobay oo muslim aha ama gaal aha xoolo leh carruurtiisa oo muslim hadduu dhinto may dhaxlayaan bay isku murmaan oo yani isku qabsadaan marka qof khaniisnimo يعني لا أجي هاي حوالها إنه ككاني شغل النوعاس أما فعل كأسرع لجو سمي أما أسوي هالسمي وحنوع أنا وكوكاني وحورد وحيلا متى حولي ربضها حولي حرمتها وما ركتي قفك بلا آذن كه وكتجي يمركض أنت أما وصار دعي أوكي marka waa xoolo uu soo dhacay xoolo uu ribarnimo ku soo qaatay xoolo uu khiyaano ku qaatay xoolo uu xaaraannimo ka shaqaystay sida rasuulku sheegay ba haweeney jirkeeda ka ganacsata maharka haweeneyda yani xoolaha ka shaqaysato lama cuno karo yiri waa xaraam nabigu calayhi salaatu sallallahu alayhi wasallam weeney jirkeeda ka ganacsata xoolaheeda jirkaay ka keensatay ila ogyahay kana waa la mid marka xoolo dhaxal galaya ما أها إن كستوع علماء ده مسائش يقولين كي قال كها أما يعني حوليس حولها ما ده وقفنا كتجي ضد كانوا أباهيين ما استعمالك أو مثلا نوع عاس لكن إنه قف كاس كجتجو أما نوع عاس مثلا ده يعني حوله وحنا لقوا كياني واستعماله وحفي عن ما وصخني بيتنا محور وصخ ويخوان absolutely سؤالش السدحد waxay leedahay gabar markeedii hore youtuber ahayd qaabkay rabtaba ha u ahaato qaab wanaagsan iyo qaab xun sidee rabtaba ha ku ahaato youtube ka shaqaysanaysa markuu ninkeeda dhinto oo asay ay qaado youtube ka ma ka sii shaqaysan kartaa iyo shaqadeeda ma sii wadan kartaa xilliga asayda ay taagan tahay okay horta waa xukun sharci ah markii haweeneydu ninkeedu dhinto in ay asay qaado 4 bilood iyo 10 bari waagi hore jaahiliga islaamka ka hor hal sano waxa halkaas sano haweeneydu qubaysanayn bulshada soo dhaxgalayn guri baa lagu xiri jiray oo feersa islaamka naxariistiisa guri baa lagu xiri jiray bool halkaas ay ku jirtaa sidii eeygi wax yar loo soo tuuri jiray darisada lagu soo tuuri jiray markii hal sano u dhameystirmo ayaa waxa la ogaanayaa in ay hadda la fasaxi karo iyo in kale waa la soo saaraya neef ariya iyo waa loo akeenaya neefkaasi hadduu shiirkeeda la baqtiyo waa sax hadduu weli taana waa lagu celinaya shiirkeeda dartiis ayaa neefkan la nafbaxaya loola xareeya oo meesha loo geliyay yani dhaqankaas islaamku meesha ka saaray 4 bilood iyo 10 bari baa la soo reebay 4 bilood iyo 10 barina bulshada ka mid tahay way xaragoonaysa waxa uu gaaro soo jiidasho leh ama cataraata ama labisaato nooc kala haato ayaa Ilaahay ka xarimay oo tilmaamaya in ay ragtoon tahay لكن إني عادي تهاي أو قويسونيسو صابون استعماليسو تكنيسو ده جناعسي جدي كشقيسونيسو بل أي ضد كذا بوقنيسو قرابة بو أصحابتي بوقنيسو مجال ده مريسو قصليسو يضع الناس يدو وضو إسلام كوا مدو فصحي مركز شقة كسين قطبة أما يوتيوب أنا قطع هنقطو دكانة هذين كذا متشقة وسي وضنيسا حدود شرعية إن إلى ليس بس واي أو إسك إلى ليس هو حدي حرقة سجيدة كاركاهي لكن نرشة كلا وبنات absolutely مركان وجود بس وأشياء أفراد وحاي لذا هاي ناكشر متاع أو عنا لا يقانو هدي أي دمتو جناسة ما لو جدو كان كرا يعني أيضا واشر موتو جير كده كجناسة بلس أيضا أفكيدا لجمع هايو inay gaalnimo sheegatay ficilka xun baa lagu yaqaan laakiin ficilka xun iyo banaan isdhigaas ay banaanka isu soo dhigto oo wadadii alla ay kaga leexatay iyo asturnaantii balse laakiin ay tahay qof la yaqaano banaanka taalo haday qoftaasi dhimato janaasada ma lagu dukan karaa horta ficilkaasi waa ficil min al-kabaa'ir dambiyada waaweyn mar hadii qofkan hore muslimnimo lagu ogaa laakiin ficilka xun ay sameysay وقف مسلمة أو كبيرة كتيرة أو دنتي هدو سكتوبت كذنة إلهي رحمة دي سهوسي الله هدو رمان وعذابي هدو رمان وعافينيا لكن مركي جنازتي ما ده وحاولنا نكرر يقفك قال كائنا إن جنازة كنت كان يقفك شهيدك لكن وحي صهر يا مسلمين ولا قلت كان ينوع الدون هالنقط مركو ولا قلت كان جنازة ولا قلت كان كرا لكن يعني وحي كحرن تاي تصالح هذا نقول شيء
waxay dhahaan culimadu xadiista qaarna ku soo aroortay qofka ficil kabiira hadduu sameeyo dadka meesha ugu weyn madaxda iyo culimada dadka waaweyn dad ku daydaan ayaan janaasada ku tukanayno laakiin dadka kale caamada ee caadiga ba ku tukanaya si dadka kale loo tuso qofkan ficil ku jiri jiray xumaa inuu wax liita yahay laakiin haddii qofkan ku toobad keenay waa lagu yaqaanay ficil waxaan uu ka toobad keenay Allah cafa Allahu amma salaf nabi maxamed haweenay zinaysatay oo uur sinadii ku qaaday xadkii markii laga oofiyay ayuu janaaso ku tukaday markaas ay rasuulka ilaahay sinaysatay ayaa ku tukanaysa markaas uu u kaadiyo waxay toobad keentay toobad haddii loo qeybiyo madiina dadka ku nool 70 kamid ay u waasic noqonayso taa way ka toobad keenay ama ficilkay sameeynayay xadkii lagaga oofiyay ayaa ka tahiray xumaantii sameyn jirtay marka qofka nabiga wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam shirkiga markii laga reebo dambiyada kale wax ka taabta oo ka toobad keena toobadii wixii hore way baabiisay laakiin hadduu ka toobad keeno sida ku dhinto ilaahay ayaa xukunkeeda iska leh hadduu rabo ka oofinaya hadduu rabo cafinaya ama annaga xukunka la mucaamilayno waa qof muslima oo dhintay janaasadiisa lagu tukanaya qubuurta muslimiinta lagu aasaya haweeneydana ka mid ah su'aasha xigta waxay leedahay wiil suddahadiisa dul saaran ama u galmoonaya ilaahay baa ka magan galday maxaa lagu xukmin karaa ama shariicada islaamka ay ka qabtaa midda kale xaaskiisii ma ku xirmaysaa mase way ka furmaysaa waa soo xaaskii qaba gabadhii qaba ayuu hooyadeed wax ka dayay hooyadeed wax ka dayay waa ajaa'ibkii zamankan caqliga iyo akhlaaqda iyo dhaqanka iyo diinta markii laga fogaado waa noocan soo kale gabadheedii buu qabaa hooyadii buu haddana subhanallah ilaahay baa ka magan galnay yaa ilaahay horta mas'aladan waa mas'ala laga hadlay waa mas'ala wayna dhici kartaa waaqica waa dhici kartaa wax ka weyn ka dhaca oo ilaahay lagu kufriyo waxa xaq ilaahay meel kale loo leexiyo ayaaba dhacaba si wanaagsan laakiin markay timaado culimadu dhowr waji way ka fiiriyaan si wanaagsan tusaale kale wiilkii gabar buu ka zinaystay markaas reer maraha kadibna gabadhan hooyadeed ayuu damcayna guursado gabadhan hore uga sinaystay way dhinacay ka fiiriyaan ama hooyadii uu ka sinaystay kadib uu rabaa gabadheedii inuu guursado maxaa xala ama gabadhii wuuba qabaaba hadduu ka sinaystay gabadhii ma xaraam noqonaysaa sidee shariicada maxay ka qabtaa aad iyo aad horta waa mas'ala culimadu ay isku maandhaafeen xataa waqtigii hore oo waxa weeye haddii horta uu qabo gabadhii uu hooyadii u tagay waa hooyadiis horta si wanaagsan haddii gabadhii uu qabo gaar ahaan uu la mucaamalo gabadhii dhaqantaay la dhaqmiyo uu hooyadeed waxa la sameeyay horta waxaad ogaataa in hooyadii qof hooyadii u tagay maxramkiisii u tagay ayuu la mid yahay si wanaagsan laakiin culimadu ma ka xaraam noqonaysaa gabadhii oo sidaas ay uga tagtay uga tagaysaa mise wala joogaysaa labo kala baydeen asaga xukunkiisa maxaa la dhihi karaa horta dawaa kabiir markaa horta zino ku dhacay si wanaagsan zino ku dhacay wala taqrabu zina innahu kana faaxishatan wa sa'a sabila ha u dhawaano ilaahay xataa xuduudaheeda soo agmaranina si wanaagsan eegmadu ay ka mid tahay zinadii wuxuu ku dhacay marka zinaba zinay ka daran tahay dadkii ka agdawaa mid ka mid ah marka waa dambi aad iyo aad u weyn nabiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiis laga wariyay oo culimada qaar ay daawo saxiix inuu yiri qofka xiriir idinku maxram ahaan idinku soo dhawaada qofka u taga isaga ba dile لأنه وفول حمى ماشي قد بيس قف هو تنوع هو يدي سكرة لأنه هو أنا ويسنا كجبين ما هو يدي سكرة محرم نوع قبل ما يهركو حريبة قبل هو يدي ولي قد حرام بكارس حتى من قرص كردينا حدي كلا تجان حتى هدي كلا تجان حتى أسوق قل مبا مهر بالغو قبل قبل وما قل مبا هو يدي ساسكو حرام نقوليسا لكن قبل ده وحكو حرام نقوليسا مركي هو يدي وقل مبا نبى وحو قرص ده haweeneydii waa lagu mehriyay asagoon la aqal gelin buu furay gabar ay dhasho jeclaaday uu guursan karaa laakiin cagsiga maya gabar buu jeclaaday uu mehersaday lama aqal gelin hooyadii buu yeetanaaba ka khatarsan ka sidatay gabadhii no waa xaraam sharciga saas waa cagsiga marka way banaantay tan laakiin ma banaan taas marka inuu u tago zina la sameeyo guurkii xalaasha baa la diiday تواد فلان كرتا وحي تاي absolutely si wanaagsan laakiin xaaskii madhabka shaafici inuu sidoo qabo kama fa xaraam noqonayso to hooyadii
dembi weyn buu ku dhacay ilaahay inuu uga toobad keenay tahay ka istighfaarsada ka qoomameeyo mar dambe soo noqon laakiin xaaskiisa waa xaaskiisa kama furmayso laana waxay leeyihiin xaraam xalaal ma xaraamayso qaacidada shaafiiciyada iyo culimada gabadhiisu xalaal bay wato ma uu qabay hooyadeed muxuu la sameeyay xaraamtan ma keenaysa xalaashiisa inay xaraam noqoto laakiin culimo kale waxay qabaan oo madaahib kale afarta madaahib laba kamid ah way ka go'day marka waa mas'ala khilaafiya laakiin sida xooga badan oo madhabka shaafiiciga ah inay saka gabadhi ka xaraam noqonin ficilka dambigan uu ka toobad keenaa ilaahay inuu uga laabtaa ka qoomameeyaa laakiin haddii gabadhi tusaale tii hore noqon haddii gabadhi waxaan la sameeyay hooyadii inuu rabo inuu guursado taas waa dambiga un kabiiradii iyo zinadii duusa ka toobadkeen loo haystaa mooyaane hooyadii ama gabadhii midba markuu tuu damco hadduusan waddada aan sheegin uu marin oo bannaanta xaaskiisana kama xaaraan noqonayso lianna xaaraamtu xalaasha ma xarimto su-aashan kale waxay leedahay horta su-aaluhu aad bay cajiibkooda u leeyihiin waana su-aalo dee aad u dhib badan waa maroorsan yihiin macnaha ma aqaano qaabkay su-aalaha laftirkooda usoo xuleen dadkan igu soo direen su-aashana waxay ku dhacday ama qofka agdhow ama way maqleen ama xukunkeeday doonayaan su-aalo qaarkoodba qofka soo qoray inuu ku dhacday su-aalo qaarkoodba waaqici baan u ahaa dhacdooyinkooda adiga maqlayba maqlay oo dee wax ka ogaa laakiin waxa aadka ula yaabka badan qaarkood waxay leeyihiinba waa tan igu mucjisada badan wiil habaryartiis hooyadiis la dhalatay uureeyey dee cunugaasi hooyadiis gabadhi la dhalatay ku hooya aabayiin habaryartiis hooyadiisa labaad buu uureeyey naxariis loo warto waxaan la yaabanahay wiilku waaba la qaatay oo nin ama dhalinyarahaada ama bala qaatay hooyadii gabadhii arkaysay inay wiilkan hooyadii la dhalatay see uga aqbasho hooyo gabadheeda oo ninkii qabo gabadheedii la seexday oo xaaskiisii ay tahay see ula ogolaatay marka waxaad dareemaysaa dadku in badan oo ka mid ah dinxumo zaa'id inay haysato way dhici karaan waxaan marka lama qariibsanaysa si wanaagsan marka sidaas taas ay tahay wiilkan marka habaryartiisa ah cunuga uu dhalo sidee reerka uga mid noqon karaa waa su'aash masaa'il yaab loo horta qof walba waa garanaya dambiga arinta la eg tahay nabigu wuxuu sheegay al-khalatu bi manzilati al-um habaryartu hooyada booskeeda ay joogtaa si wanaagsan ilaahayna maxaarimta wuxuu u xarimay in la guursado لأنه ولا أوجه habaryar iyo eeday wax in la guursaday wuxuu xarimay dadkan qaraabanimo iyo rixim sokeeya ka dhaxeeya guurna markii la isku guursado garanaysa islaantooda ku qeydatan waa la furaya tan yaani waa la kala qaabana madaxa la isla kaliya marka taa inay xumaato riximkii buu ilaahay u xarimay tool xumadaas iyo dadkiisa iska gaadho si wanaagsan marka habaryartii hooyadii la dhalatay waxa macquul ah in iyadu tahay mid da'yara ha gabaska yaasta gabar iska wiil yar iska yahay oo haysta gabriya dadka qaar waxay haystaa waalidku da' weyn inuu la egyahay si wanaagsan waxa macquul ah aniga inaan dhaho qof iga weyn kunta sano jira ina waalid u noqoto ina u noqdo macquul Soomaalidu waxay aaminsan yihiin da'da weyn baa wax noqota da'da weyn baa wax noqota marka gabadh maadaama waa yar tahay habaryar wax weyn loo haystaa si wanaagsan marka meelahaas laga yaabaa inay ka fududaystaan marka way dhici kartaa laakiin waa dambi weyn ku dhacay wiilkaasi sidee familka uga mid noqon karaa marka ilmaha dhashay oo ka ku dhashay maba ka mid noqon hooyadii baa iskale musiibad asal baxalaal oo ma ahayn in uu guursado meher u qabto haye حرامتي وحرام كسي كردي مرك قفكان تضباطن حرامات بس دول صارن سبحان الله إلهي تضباطن حراماتنا way ka dhasheen arinta way ka ratimeen marka kama mid noqon karo familka hooyadiis baa iskale allo ku siimiyaan dhana waxaan ku tilmaana ta culimada u daay tan mas'aladan waxaan u maleynayaa sida xadiis hore idin sheegay qofka mahramkiisa ka sanaysta ama guur la aada nabigu wuxuu yiraahdaa la dilo hadkiis waa jeermis waa wasakh in la jaro si wanaagsan darteed nin saxaabiyo meel u socda nin kala ka horiyo markaas waxa ka socota suuri hebel baan u socdaa oo meel heblaayad degan nabiguna ii diray inaan soo dilo ka soo takhaluso sabab maxaa rabta wuxuu guursaday naagtii eedadiisa ahayd ee aabihii qabay oo ka dhintay ay guursaday jaahilkiisaas ayaan jirtay bay hore ninka aabihii markuu dhinto aabihii eedadii uu ka tagay hooyadii maaha
ayadis oo ka dhintay odagii oo guursanay cid kale ma guursan jirin jaahiliga saxay subhanallah marka nabigu wuxuu yiri ninkaas ka soo takhallus dawladii baa xukun soo bixisay ba maxkamadda nabiga si wanaagsan sallallahu alayhi wasallam qofku u tagay xadkiisu waa kaas laakiin xuduudaas inta badan maanta dama jirto okay su'aashan dabcan waxa u maleynayaa inay ilaahay hago toobad keenan in badan ka xamayo waxaas su'aashan waxay ila tahay inay qurbo joogta saameynayso waxa la leeyahay nin naagaalo ah qaba ama naagaalo ah ee la qaba nin islaam hadduu ka sinaysto xukunkiisa muxuu noqonayaa maanta sina iyo gudo iyo hoole iska dowreegsa waa mucjiso subhanallah wax dhici kara horta gaala iyo muslima kala hansinadu okay kaas kumid si wanaagsan sinadu waa zino waa dambi ilaahay reebay haye mana kala lahan gaala iyo islaam waa isku mid si wanaagsan waxayna si dambi weyn tahay ninka marka naagta la qabo ka si weyn si wanaagsan laana ninkaas xurmadiisa naagta qabay gogashiisa wasaqayso doox si fiican ninkaas ha ahaada aan gaal ama muslim naagta qabo saadarte culimadu waxay dhahan qaarkood hadii adigan lagu qasbo ama qof waa lagu qasbayba waxa lagu yiri waa lagu dilayaa ama naagta ka sinayso ama dhimanayso naagta nin baa qaba waxay dheen dilka ha doorto isuka tilaabo qaadin sinadan naagta ninku qabo si wanaagsan dilka ha doorto si fiican waayo xuquuq halkan waxa ka iimaanaysa qeyrkiis ku tacalluqdo nin kala si lagu cafiyo ma jirto baynama bay dheen hadii naagta aan la qabin oo qofkii liiray ka sinayso waa lagu dilayaa hadii kale oo isku badbaadin kara sinada tayadu yeelayso oo goshay isku badbaadin karo dilkiisa badbaadin karo hadii laakiin la qabo dilku dooranaya ikraaha macnaha meel loogu baneeyay ma jirto gaal ha ahaato muslim ha ahaato ninka qaab muslim ha ahaado gaal ha nooc doonaba ha noqdo zino waa zino fool xumo meel taalo waay marka waa de zinaad ku dhacday waxay la mid tahay gabar muslimeed oo ka sinaystay kaway waxay u duwan tahay inay muslim ahayn asana muslim tahay laakiin waa isku mid waa gogol aad ku samaysay qaab aan sharci ahayn ama xarig aan sharci ahayn gogol aad ku samaysay waay ama qofka la sameeyay muslim ahaada ama ayaa ahaan waa isku mid okay tan waxay ku dhex jirtaa wax yar way kaga dugan tahay gabar islaamad ah la qabo ninkeediina maqan yahay adiga haddaad la noolaato bal ka waran oo adoo og aad lacag ka qaadato adoo markaa dhahaya ayadaa ijecel lacagtana isiisa ayadana waa la qabaa nin muslima qababa qurbaha jiro ayadana afrika u deganta ayadana afrika deganta marka nin baa la soo biilaa lacagta loo soo dirayo nin baa la qaybsanaa ninkan baaba la qaybsanayo asagana wuxuu taagan yahay ani maanan qasbin ayada ay soo doonatay wuxuuna ku sii leeyahay waliba nimca isoo doonatay ma diidaya nimca kuma soo doonan niqma ku soo doonatay argoosi baa ku soo doontay si wanaagsan horta masaa'ib baa ka imaaday nimanka qurbaha ku nool dumarka Yurub jooga si wanaagsan labada dhinac dambiga ku leeyahay sanado iska maqnaanaya qofkan iska nafle guur soo doontay reer u dhisan yahay cirka halkan dhulna ma gaarin cirna ma gaarin meel aad si fiican marka gaar ahaan waxdana ajnabi la sidajiyo iyadoo guriga ka sikirayso masiibo way dhacdaa taas way dhici kartaa laakiin xadiiska nabiga hor yaala meesha sallallahu alayhi wasallam ogo nabiga xataa hor u soo tilmaamay waxaana dhici karaan buu xadiiska qiisa nabigu wuxuu tilmaamay ninkii naag la qabo oo dama mara ninkii qabay xitaa war yar oo ninkaas iska furkiliya ah ku dhees ka daa wax kale nabigu wuxuu tilmaamay qiyaamaha inta la soo istaajiyay ninkaas in leeyahay wixii xasanaad u lahaa inuu qaado sagro wixii uu xasanaad lahaa hal xabba u reeb qaada leeyahay bal nabigu wuxuu tilmaamay ummadayda kama mid ahaa nin naagtiis nin kale ku khiyaamay nimcay soo doontay ninkaas oo mara dib baa soo doontay يعني قف كسر دقن كاس لهنا وين ولا هيك طوبت كنا حسنا صلاة هذا قب عاد كسيسي نينكاس حاس كيس الضبط لقطي أيا قيامك قاضنية وأمد كلاه إلهي أمدي أمة محمد كمان ميتي وكبري بكان نقط بل نعرض إلهي بقول عضي سبحان الله إنك جوجش إسلامي دبت شوجا سبحان الله مو هو جوجل حتى هاد ناكته مركل القبية مركل القبين ما طلع لسمي وكلوينته سوى ناكسن مركل القبو وكوينته مركل القبين لأن مركل القبو واحد حقوق لا داوعيسا ايدا حقيدي حق الى يعني حقوقدا marka laga yimaado ninka ka dhaxaysa waxa daawacaysa xaq nin maqan oo miskiina oo reerkiisa soo dadaalayo oo dhafrayo gaari u wado yani taraag u saaran oo u dadaalaya dhakraysa si ilaahay ku afin kara ma jirtaba si wanaagsan
سؤال ugu dambaysa wiil gabar xiriir uu la leeyahay dabcan kuna heshiyeen inay isguursadaan goortii la isfahmay la iska soo dhawaaday ninkan isla heesiyay inuu gabadha guursanayo haddii wax yar kaga taraaraxdo haye usa ugu galmoodo isku dhacaan haye kadibna uur meesha yimaado cunugaasi nasabiyadiisa ma sheegan karaa aabba waa su'aasheen ugu dambaysa aad baa mahadsan tahay su'aalahan hawsha maanta dhan ka daboolay haday tan ugu dambayso waa alxamdulillah si wanaagsan horta meel marba ku xiran tahay inkastoo culimadu ilmahaas in badan oo kamid ah ay qabaan inaan loogu nasab sheegay ninka boqol jeer haduu sheegto laakiin culimo kale oo dhinaca kala qabtana waa jirtaa oo kaasna aan ku qanacsanahay gabadhan iyo wiilkan waa wada socdaan si fiican hadalkayga u dhageysta si wanaagsan ayaga bas baa wada socda gabadhan xiriir kala ma laha si wanaagsan niman kalena ma la socoto mid meelahaas iska daba meeraysanaysan ma ahan waa gabar iska quman iska toosan wanaagsan asturan ninkaan ay shukaansataa guur ka raadinaysa ninkii baa been u sheegay marka si wanaagsan hadda isku tagno kulli naagteeda noqon doontaa uu ka aqli badiyay waxa ku afuufa gabadhii si wanaagsan madaxeedu hoos u rogay meel buu ku balansaday gurigiisa shiirka badnaaya iska bulada kudka badna si wanaagsan si wanaagsan shaydaankii baa wax u sheegay si wanaagsan shaydaan ma dhihin wax uu sheegay shaydaanku uu labeeyaayo daallaga ayaga soo raadsaday nafsooda si wanaagsan si wanaagsan gabadhu uu ka aqli badiyay xaq ku istaa waska garanaa rag iyo wax isku aadiyaan iyo xiyay u matalan gabdhaha masaakiinta si wanaagsan baa yimid si wanaagsan isku xad gudbeen uur baa yimid marka balaati ma waree waxna sameeyay iskuursan guurkan ku aqrina uurka 3 bilood waana ogtahay asaguna uu ogay uurkan isaga biyihiisina yihiin si wanaagsan aysan cid kale waligeed taaban ayadaba waligeed cid kale aysan u soo dhawaad aysan ka dhiijinba ay isaguna uu ogyahay ilmihiisa inuu yahay biyihii ka yimid asaga kan si wanaagsan inay yihiin uu ogyahay ayaduna uu ogtahay cid kalena inay meeshan soo marin uu ogyahay inuu guursadana uu raba hadda dumarka ragga badanta waa uga baxaan markay xilliga marayaan laakiin ninkan daacadnimo isku muujinaya geesinimo isku muujinaya inuu guursadaa ka go'an oo guri dhaqdo gabadhan qalbigeeda ilaaliyo oo san been u sheegin oo meel degsado ciladana way timid waa xaalad gaar ah ilmahaas asaga loogu nasab sheegaya okay asaga dhalay dhaxlaya waa ilmihiisi okay mar hadii sida loo hubo tilmaamo laakiin gabar shaqaasi badanatay taa mid baahan guriga ku tagto no ka ma ka hadlay wadabka iyo wadadan sheegay waa absolutely waa ilmihiisi wuuna guursanayaa hadda isla markii meher uu ka tabakeenaya waa aroosaya waa xaaskiisa ilmaha dhashana waa ilmihiisi absolutely billahi tawfiq aad iyo aad u maadsantay aad baa u maadsantay saaxiibada qaliga ah waxaan marka hore bulshada islaamka ah ka raali gelinayaa haddii erayo qalafsan ama aanan bulshada ku wanaagsanayn aan hor keenay inkastoo ay wanaagsan tahay in qofka waxa uu ku soo weydiiyo laga jaahil bixiyo ay ku fiican tahay laakiin sida akhlaaqiyan markii loo jeesto waxaan ka raali gelinayaa erayadaasi amal daheen aan isticmaalnay waa idin ka raali gelinaynaa sidoo kalena waxaan qaybta labaad idin ku soo qaadan doonaa ayagana su'aalaha aad noo soo gudbisaan si mujtamaca cilmi la'aanta ka ah ay uga baraarugaan habdhaqanka noocan oo kaleeta ah ilaahayna mujtamaca islaamka ha ka badbaadiyo annagana ha naga badbaadiye sidoo kalena haddii wax qalad ah ay naga dhacaan shaydaan ha ahaado dhankiisa intii aad saxnana ilaahay korkiisa ha yeelo sidoo kalena waxaan idin leeyahay aniga iyo sheekha oo isku duuban aad iyo aad waa u mahadsantihiin tani mar kale muuqaal noocan oo kale ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo inuu alla na saamaxo